بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مركا أغه رئيس إلهي بمهد إسكاله إلهي مركا لنو سورة قليي أنغو خيرات كإيو وناق إسكو شيغينو وحانو صاهيني موضوعين عوان كيسوها آفات اللسان أيان كسو هدليني cudurrada ku dhaca carrabka ayaan ka soo hadlaynay. waxaan ka soo baxnay muqadimadii ayaan ka soo baxnay. casharkii koowaad ayaan u gudbaynaa. cudurrada carrabka ku dhaca waxaan u qaybinay alghiibatu wannamiima. waxa waaye qiibada oo namiimada isku dirka aafaadka ugu horeeya ayaanu ka dhignay. kaas ayaan bilaabaynaa. qiibadu ama xanta waxay kulansanaysaa 9 qaybood ayaa loo qaybin doonaa. qaybta koowaad waxa waaye waa xanta. qaybta labaadna namiimadana ayadana 8 qaanadood ayaan gelinaynaa. kan koowaad markaan fiirino iyo midka labaad, alqowlu cala allaahi bikayri xaqin, in ilaahay wax aan sax ahayn laga sheegana waxaan kaga hadli doonaa. waxa waaye qaybtiisa koowaad, ilaahay in lagu been abuurto iyo rasuulkiisa 3 qaanadood ayaan gelin doonaa. qaybteeda labaadna beenta si guud ahaan ayadana waxaan uga hadli doonaa 4 qaybood 4 qaanadood ayaan gelin doonaa. qaybta saddexaadna shahaadatu zuurka, markhaati beenaadkana 3 qaanadaan gelinaynaa. kan saddexaadna alqadafu, dad qofka in wax laga sheego oo la qadfo wuxuusan ahayn korka laga saaro, oo waxa waaye wuu sinaystay iyo la yidhaahdo amise waxbuu xaday. iyo doodaha iyo badaa'atu lisaanna waxa waaye ayadana 2 qaanadood ayay geli doontaa. waxa waaye doodaha iyo muranka asagana 3 qaybood ayaan gelin doonaa. tan saddexaadna badaa'atu lisaan, afdheeridana ayadana 25 qaanadoodaan gelinaynaa. tan afaraadna carabka in la xifdiyo waa inay waajib tahay ayaan ka hadli doonaa. waxaa la yidhaahdaa maadadan cilmiga ah markii aad loogu dadaalay baxhi lagu sameeyey iyo maraajicda oo dhan, waxaa ugu weyn oo ugu qiimo badan markii la itlaaqo kitaabka qur-aanka kariimka markii la fiiriyo sunnada. waxa waaye labadaasi waxa waaye waa labadii meelaha wax ka soo burqanayeen oo laga qaadanayo oo saafiga ah. waxa waaye taasna marka waana ka hadli doonaa in marka wixii aan meeshaasi ka soo sheegno in goosdambeedka lagu qaniino. qofkii goosdambeedka ku qaniinaaye qofkaasi waa liibaanay, waa guulaystay. qofkii ka jeesta oo wax waaye oo iskaga jeestana asagana wuu khasaarayaa. labadaasi kitaabka qur-aanka iyo sunnada qofkii iskaga jeestaaye qofkaasi wuuna khasaarayaa, wuuna baadiyoobayaa. khasaaro ayuu u diyaar yahay. waxaan soo fiirin doonaa haddii ilaah yidhaahdo axaadiista oo maxaanku rahdaa ku soo aroortayna
aad iyo aad ayaan u fiirin doonaa oo dhinacyo fara badan ayaannu ka fiirin doonaa. waxa waaye axaadiista imaam bukhaari imaam muslim soo saaray waxa waaye ayaan ka hadli doonaa insha allah, oo darajada xadiiska mase meeshaas gaarsiisan. marka waxaan fiirin doonaa waxaa lagu magacaabay aafaatu lisaan. mowduuca ciwaankiisii waxa waaye aafaatu lisaan ayaa loo bixiyey. kitaabka qur-aanka markii aan fiirino iyo sunnada rasuulka sal allahu alay wasalam ayaan ka soo qaadan doonaa wixii noo fududaado oo aan ka sheegi karno. taasna marka waxa waaye waxay noo noqon doontaa insha allah waxyaabahaasi sidii lagu gaari lahaa sawaabka iyo waddada toosan. wixii hagaagsanaado oo aan si fiican u sheegnana ilaahay xaggiisay ka ahaatay, wixii aan ku gafnana nafteena iyo shaydaan xaggiisay ahaatay, ilaahay rasuulkiisana beray ka yihiin. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa waxa waaye ilaahigii carshiga lahaa asmaa'diisii wanaagsanaa iyo tilmaamihiisii sarsare inuu ilaahay nooga dhigo waxaan sheegayno, waxaan dhegaysanayno, waxaan akhrinayno, waxaanoo dhan khaalisatan liwajhillaahi, ilaahay dartiisa inuu ilaahay nooga dhigo, inuu ilaahay nagu anfaco waxaan isku sheegaynana adduunyada intaan nool nahayna inuu ilaahay nagu anfaco, markii aan geeriyoono kadibnana inuu ilaahay nagu anfaco. maalin oo maxaa waaye ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaaha biqalbin saliim. maalin aan xoolo si kasta ha u tiri badnaadeen, owlaad si kasta ha u tiri badnaadeen, oon waxba kuu tarayn ilaa qofkii qalbi saliima la yimaado maahane. inuu ilaahayna subxaana wa tacaala dhammaanteennaba uu nagu anfaco, qofkii dhegaysta, qofkii daawada iyo qofkii faafiya dhammaantoodaba inuu ilaahay nagu wada anfaco, ee taasna ay noogu noqoto miisaankeen xasanaadka inuu ilaahay noogu kawo. maalintaasna ilaahay nagu anfaco yowma laa yanfacu walaa banuun ilaa man ata allaaha biqalbin saliim. marka taasna ilaahay baan kaalmaysanaynaa, xasbuna allaahu wa nicma alwakiilu walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. marka intaasi marka waxaan gudaha u galnay marka baabkii koowaad oo waxaan kala hadli doonaa alghiibatu waannamiima. waxa waaye qaybtii koowaad xanta ayaan horumarsiin doonaa. sidaan horeyba u sheegnay, xanta marka aan ka hadlayno 9 qaanadood ayaan gelinaynaa. qaybta kaledana waxaan ku xijin doonaa namiimada iyo iskudirkana, ayadana saan u sheegnayba 8 qaanadood ayaan gelin doonaa. tan ugu horaysa waxaan ka bilownay alghiibatu, xanta. waxaa la yidhaha ghiibadu, alghiibatu markii lagu dhawaaqo waa luqa alcarabiya, af soomaali ma aha. laakiin markii la qeexo oo la fasiro tacriifka ghiibada waxaa la yidhaahdaa culimmadeeni aad bay u qeexeen oo way kala dhigdhigeen. ibnulxajar haddii aan bilowno waxa uu yidhi waxaa lagu kala aragti duwanaaday culimmada xanta markii la qeexaya ama xuduuddeedii way ku kala aragti duwanaayeen. waxa waaye nin sheekha la yidhaahdo sheekhu alraaqib la yidhaahdo, xan waxaa lagu tacriifi karaa luqada carabiga ah qofka bini aadanka in laga sheego ceeb, laga sheego macnaha inuu macnaha qof kale ceebtiisa uu sheego. waxa waaye min gayri muxwajin ilaa dikri daalika, wax macnaha inuu u baahdo inuu ceebtiisa sheego, wax baahi keenaysana aan jirin, inuu qof maqan oo wax ka sheegaa la yidhaahdaa. carabiga saasaa lagu dhahaa. imaamu khazaalina wuxuu dhahay xanta waxa waaye xuduuddeeda qofka walaalkaaga inaad ka sheegto wax uu kahanaayo ama uu nacaayo. haddii lacalla loo sheegi lahaa waxaan adiga aad ka sheegayso, haddii dhegtiisa ay ku dhici lahayd wixii uu nici lahaa ayaa xan la yidhaahdaa buu yidhi. ibnulasiir waxa waaye fi nihaaya wuxuu ku sheegay isagana xanta inaad qof bini aadan aad ka sheegto asagoo kaa maqan xumaan, wa in kaana fiihi xumaantaas hadduu rabo ha lahaado. taasna waxa waaye tacriif kale waaye ama qeexitaan kale.
imaamu nawowi kitaabkiisa al-adkaar wuxuu ku sheegay asagoo uu ku raacsan yahay imaamu ghazaali wuxuu yidhi xantu waxa waaye qof inaad ka sheegto wax uu nacaayo waxa waaye waxaa isla mid ah fii badani shaksi waxaad aad ka sheegayso ceebta ah qofka aad wax ka sheegayso badankiisa ceebtaas ha lahaato shaksi ahaan wax ugu sheeg badankiisii diintiisa wax ugu sheeg adduunyadiisa wax ugu sheeg wax ka sheeg nafsadiisii akhlaaqdiisii abuuritaankiisii maalkiisii awlaaddiisii xaaskiisii khaadimkiisii maradiisii dhaqdhaqaaqiisii waxa waaye iyo maxaanku weji furfurnaantiisa iyo weji xirxirnaantiisa iyo wixii la midaba waxyaabaha ku tacalluqa qofka maxaanku idhaahdaa oo lagu ishaaraayo oo ama farta loogu fiiqaayo oo wax laga sheega ayaa la yidhaahdaa xanta sheekh kalena ibnu taymi wuxuu sheegay xanta waxaa kaloo la yidhaahdaa qofka inuu ka sheego wax qofka uu nacaayo bidahri lghaybi asagoo uu ka maqan yahay imaamu nawowi raxmatullaahi calayhi asagana wuxuu yidhi wa min dalika qowlun kathiiru min alfuqahaa'i min atasaaniif waxa waaye imaamu nawowi wuxuu yidhi waxaa jira hadallo fara badan oo ay fuqahada ay maxaan ku raha kutubtooda ay ku sanifeen qaala bacdun bibacdin man yaddaci alcilma qaar oo cilmiga sheeganaya oo bacdi man yansibu ila alislaaxi kuwa oo maxaan ku rahdaa loo tiiriya ama isu sheegaa inay wanaagsan yihiin miman yafhamu saamicu almuraadu bihi waxaa kaloo ka mid ahday qowlu cinda dikrihi hadalkooda markii ay ka sheekeeyeen wuxuu yidhi oo macnaha qof baa waxaa laga yaabaa inuu qof xamanaayo waxa waaye qof cilmi sheeganaya ayaa wax xamanaya si cilmiyeysan ayuu qofka wax uga sheegayaa kuwo wanaag sheeganaya ayaa dadka xamanaya si cilmiyeysan waxa waaye ayay sheegayaan waxay u sii dulmarayaan qof inay xantaan oo waxay leeyihiin ilaahay hana cafiyo ilaahay hanaga tooba aqbalo nas'alu llaha asalaama fa kullu dalika min alghiiba intaas oo dhan wuxuu ula jeedaa inuu ducaysanayo iska dhigaayo laakiin qof buu durayaa oo wax ka sheegayaa xanta marka kuma khaas aha keliya carabka in wax lagu xanto markii wax la xamanaayo xanta carabka keliya khaas kuma aha waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo qof kale oo uu kaa fahmaayo waxyaabaha qofka kaa maqan oo aad ka oo uu nacayo oo aad ka sheegayso wixii lagaa fahmo oo faham ahaanka u imaadana waxa waaye taasna xanta ayay noqonaysaa walow tacriid ha ahaado sarbeeb ha ahaato qof aad u sarbeebayso xantiay noqonaysaa mise ficil aad muujinayso oo qofka aad ku xamanayso ahaado ama farta aad ku fiiqayso oo wax aad tilmaamayso mise iljibin iyo waxa waaye ceebayn oo xagga ficilkaaga aad ku samaynayso mise qoraal aad ku qortay ha ahaado kulligaas waxyaabaha oo dhan oo dadka ay ku wada xidhiiraan oo maqsuudkii oo xantana lagu gaaraayo mithaal oo qofka inuu qaab u socdo qof kale inuu xanto ayuu rabaa qaab u socodkiisa ayuu u soconayaa xanta ayay soo gelaysaa carabna maaha taas ayaa weliba waxaa la yidhahdaa noocaas oo saas oo ficilka lagu samaynaayo ayadaa xanta tan ugu weyn ayay ka mid tahay maxaa yeeley liannahu acdamu wa ablagu min altaswiiri waaltafhiim ayada ayaa ugu weyn ayadaa ugu xeel dheer qaab suuraynta iyo isfahamsiintaba taas waxaan uga soo baxnay tacriifka xanta la yidhaahdo ama qeexitaankeedii qaybteedii labaadna waxa waaye farqiga u dhexeeya intaanan u gudbin namiimada xan iyo waxaan dhahnay alghiibatu wannamiima ayaan isku qabanay marka maadaama labadooda la isku qabtay qaybtaan waxaan ku fiirin doonaa farqiga u dhexeeya qofka wax isku diraaya iyo qofka wax xamanaaya farqiga u dhexeeya muxuu yahay xaafid ibnuxajar raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi waxa waaye kiibada iyo namiimada markii laysku qabto way ku kala aragti duwanaadeen culimmada maxaanku idhahdaa waxay yidhaahdeen
wax oo mutaqaayirataan miya oo kala bedelan miya mise wax waaye laba oo isku mid ah miya taas ayaa laisku khilaafay sida raajixa xoog badanna markaa fiiriso way kala duwan yihiin taqaayur ayaa ka dhexeeya waayo wa anna baynahumaa cumuumun wa khusuus wajhan macnaha marna waxaa ka dhexeeya caam ahaan marna waxa waaye wax caam ahaan ay u kulmaayaan marna waa khusuus waay wax kala gaara ayay leeyihiin xagga qaabka loo fiiriyo taas maxaa laga wadaa marka namiimadu maxay tahay marka namiimada isku dirka waxa waaye naqlu xaali shaksin ligayrihi qof xaalad uu ku sugan yahay oo waxa waaye waxyaabo dhaqan uu asaga uu samaynayo uu ku sugan yahay inaad soo guuriso cid kalena aad u soo guuriso ujeeddada aad leedahayna calaa wajhi ifsaad macnaha qofka waxaan uu samaynaayo oo xaalad uu ku sugan yahay baad soo raraysaa qof kale ama koox kale u soo raraysaa waxaana ugu talagashay ujeeddadaadana ay tahay inaad isku fasaadiso oo isku dirto bigayri ridaahu raal ahaasha la-aantiisa sawaa'an kaana bicilmihi qofkaasi wax uu og yahay ha ahaato am bigayri cilmihi ama cilmi la-aan ha ahaato taas waxaad yidhahdaa namiimo xaalad qof ku sugan yahay baa soo raraysaa cid kale u soo raraysaa niyadaadana calaa wajhi ifsaad ayaa ujeedaa inaad isku dirto fasaadiso amaa xanta waxa waaye inaad qof wax ka sheegto oo kaa maqan bimaa laa yurdiihi waayo wuxuusan asaga raalli ka ahayn ayaad qof baa wax ka soo raraysaa hadalba waxbaad ka soo guurinaysaa waxbaad ka sheegaysaa macnaha asagaa ka soo raraysaa marka warkiisa soo qaadaysaa maaha macnaha asagaa wax ka sheegaysaa waxuusan raalli ka ahayn marka fa imtiyaazaatu namiima biqasdi ifsaad marka namiimadu waxay kaga bedelan tahay waxa waaye qasadkeedii waa fasaad waaye walaakin looma shardinaayo kiibada fasaad ula jeed mise fasaad ha ula jeedin waxa waaye waxay rabtab ha ahaato saasay ku kala bedelan yihiin isku mid waaye looma shardinaayo xanta waxaan aad qofkan aad ka sheegayso oo dad kale u sheegayso in aad ujeeddo xun aad ka leedahay in kale looma shardinaayo xan bay noqonaysaa waxa waaye xanta iyo saasay ku kala bedelan yihiin culimmada waxay yidhaahdeen qaar ka mid a waxay u shardiyeen xanta an yakuuna almaquulu fiihi gaa'iban qofka wax laga soo guurinaaya inuu qof maqan yahay qofka wax laga sheegayo qof jooga inuusan ahayn ayaa qaarna u shardiyeen qofkaa wax ka sheegayso waxa waaye qof kaa maqan inuu yahay oo waxaad ka sheegaysana waxaan fiican ahayn qaybta saddexaad kiibada xukunkeeda muxuu yahay marka shareecada islaamka markii miisaanka la saaro xanta xukunkeeda muxuu yahay waxaan shaki ku jirin oo labana aan isku haysanin oo culimmada ka mid ah xantu inay xaaraam ay tahay xanta xaaraannimadeedii khilaaf kama taagna biijmaaci lmuslimiin muslimiinta dhammaantood ayaa isku ijmaacsan dood kama taagna marka waxa waaye xanta xaaraannimadeedii waa ijmaac waayo waxa waaye dadka muslimiinta ayaa isku ijmaacsan maxaa yeelay waxaa isku kaalmaystay oo gacan isku siiyey xaaraannimadeedii waxa waaye daliilooyin adillo oo sariix ah waxa waaye oo kitaabka qur'aanka ku cad iyo sunnada rasuulka ku cad iyo ijmaaca ummadda isku raacday oo sariix ah marka sariix laleeyahay macnaha sariix waaye hal macno keli wuu cad yahay waaye dood kama daay waa qaطci waaye waxaa yeelay waxaa khilaafka ka imaanaya waxa waaye wixii laga sheego inay dood la geliyo oo xadiiskan saxiix maahan in la yidhaahdo mise waa saxiixa waa aayad qur'aan waaye laakiin macno badan buu leeyahay la dhahayo waxa waaye waa sariix waa kan waa wax ku cad yahay xaaraannimada oo meel kale looga leexdo oo khilaaf laga geliyo ma leh xanta xaaraannimadeeda qaybta kalena waxaan fiirin doonaa in dadka lagu cabsi geliyo maadaama ay xaaraam ay tahay xanta ku dhicitaankeeda dadka in looga digo oo lagu cabsi geliyo tarhiib lagu sameeyo ku dhicitaanka xanta lagu dhacaayo
آيدي قرآن كبل أنفيرينو وإلهي قرآن كيسو نوغو شيغي إلهي وحير لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله إلهي مجعل الجهر بالسوء إن حمان لجهره وحواي إلهي مجعل معناه إن حمان قفك بنانك الأولى تاقناده إلهي مجعل وحواي بالسوء من القول هذا الحن إنه قفك ولا جهره بنانك لا تاقناده إلا من ظلم عدي للظلمي الظلم جاد الشيغان يسحمان تيدي بنانك دغيسو عدي الظلم سي ظلم جاد كهدل سماهنه وكان الله سميعا عليما إلهي هو السميع واي وهو البوم الله وانا عليم واي وهو البنو اوغيهاي آيات كلام إلهي وحو كو شيغاي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم مؤمنين تأيو إلهي ودواقي يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النبي يسرميو إيمانك نبتع لغيها ليو اجتنبوا كفغادا أو كديرادا كثيرا من الظن ظنك يملها انتي سبدا اسكغا فغادا محايا إن بعض الظن إثم ملها ملياشا قاركودا ودنبي ولا تجسسوا حإسجاجوسنا ولا يغتب بعضكم بعضا قاركينا قارك كلنا ححمننا حإسحمننا واي مركز إلهي وحير أيحب أحدكم قف إذنك إذن كمدا مجعلي هاي أن يأكل إنو عنو لحم أخيه ولا الكيسة هلب كيسة إنو عنو ولا الكاس هلب كيس أو ميتا أو بغتئة لحم أخيه ميتا ولا الكيسة بيت كيسة بغتي كيسة إنو عنو هلب كيسة إنو عنو قف جعل ما إذن كجرا فكرهتموه واتكهنيسان أو وانعيسانه واتقوا الله إلهي كعب صدى إن الله الله تواب إلهي التوبة أقبل بدن واي رحيم ونحرس بدن آيات كلنا إلهي وحو كيري ويل هلاك وحا أسقنا ذي يوالي جهنم كيالا وحا قلايا لكل همزة لمزة mid kasta oo ceebayn badan oo dhaleecayn badan oo indhaha iyo dadka u iljibiya isha ku caaya ayaa waxaa u sugnaaday waxa waay waadigaas naarta ku yaala nabigeena sallallahu aayad kale ilaahay wuxuu kale ku yiri ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid qofka hadal kuma hadlaayo qawl wax lagu dhawaaqo illa ladayhi agtiisa waxa jooga hadduu dhawaaqaba رقيب عتيد لما ملك رقيب عتيد ليرادو أيا أكتي سجوه وحي صدام قرايا إلهي آيات كلنا وحو كيري ولا تقف ما ليس لك به علم حرر راع أو حد الدبقلين حرر رادين وحادا علم أقون أو أندن كاغي حرين حرادين محايا لإن السمع معايا الدبقلك قفأد حالتيسي رادسان هذا أو عبتيس رادسو وحواي تقف وحواي هكون استاجن أو هكوا رادين وحدا أقول أولهين أو قال أوهين معايا لإن السمع والبصر مقلك أرجع والفؤاد قلبك كل أولئك كان عنهم مسؤولا والسويدين دونا انت صدان سؤال أياك الدنبين دونت marka intaas markaan ogaanay xanta marka waa aafatun khatiira min aafaati lisaan xanta waa cudur xun oo dilaa ah oo waxa waaye carabka ku dhaca carabka cudurada ku dhaca cudur ka mid ah waxa waaye nabigeena sallallahu alayhi wasallam markuu uu qeexay xanta xadiis oo Abu Hurayra uu wariyay radiyallahu anhu وحي الرسول صلى الله عليه وسلم التدرون ما الغيبة مقرنيسا حنتا مقرنيسا صحابة أيوه دي التدرون مقرنيسا أو متقانين أو مكور قبتين ما الغيبة حن وحل إرادو
qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu allaahu wa rasuuluhu aclam, ilaahay iyo rasuulkiisii ayaa wax walba asagaa og. qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi xan waxa waaye dikruka akhaaka bimaa yakrah, walaalkaaga in aad wax ka sheegto waxaad ka sheegaysana uu nacaayo uu nacban yahay. qiila waxaa la yidhi rasuulka ilaahayow afara'ayta in kaana fii akhi maa aquulu, walaalkay waxa aan ka sheegaayo haddii uu ku sugan yahay uu yahay ceebtaasba hadduu leeyahay ka waran. qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi in kaana fiihi maa taquulu, ceebta aad ku sheegaysa hadduu leeyahay faqad iqtabtahu, waad xamatay. wa in lam yakun fiihi, waxaad ka sheegaysa haddaad uusanba lahayna faqad bahadtahu, waaba ku been abuuratay, waaba hafariday, waaba ka sii daran tahay waay. abi xudayfa wuxuu ka wariyey wa can abi xudayfa can caa'ishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi qaala linnabiyi sala allahu calayhi wasalama, nabiga ayaa waxaan ku dhahay bay tidhi xasbuka, waxaa kugu filan ooba maxaanku idhaahdaa wax kalaba aan loo dhiginba min safiyata kada wa kada tacni qasiira. waa safiya bintu xuyay, xaaskii rasuulka sal allahu alay wasalam umulmu'miniin ayay waxay tidhaahday waxa waaye safiyo oo xaaskaaga ah waxa waaye waxaaba ceeb ku filan, waaba gaaban tahay bay tidhi. xasbuka waxaa kugu filan waxa waaye min safiya kada wa kada, taasaaba ku filan ceeb, macnaha way gaaban tahay bay tiri. miska safiya way gaaban tahay ayaan rasuulka agtiisa ku dhahay bay tiri. fa qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laqad qulti kalima low musijat bimaa'i lbaxri lamasajathu. rasuulkeena wuxuu yidhi laqad qulti, caaishoy waxaad tidhi kalimatan hadal ayaad ku dhawaaqday oo afkaaga ka soo baxay oo way gaaban tahay ah. low musijat, kelmaddaasi haddii lagu daro bimaa'i lbaxri, badda biyaheeda haddii lagu dhex daro lamasajathu, ay soo bedeli lahayd, macnaha urteedii way isbedeli lahayd waayo. waxa waaye wa qaalat waxakaytu lahu insaanan, waxay tidhi qof bini aadan baa wax ka sheegay, macnaha waxay tidhi waxakaytu lahu insaanan. qaalad waxay tidhi waxakaytu lahu insaanan, qof bini aadan ayaa wax ka sheegay. fa qaala wuxuu yidhi maa uxibu, aniga ma jecli annii xakaytu insaanan, in qof bini aadan wax ka sheego ma jecli. wa inna lii kada wa kada wa kada, waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas haddii la rabo aanba maxaanku idhahda aan helo, wax aan maxaanku idhahda inantaan qof wax ka sheegi lahaa waxa waaye waa iska daynayaa buu yidhi, wax beddelkooda oo intaasoo dhan haddii la rabo hala isiiyo. anas ibnu maalik allah ka raadina qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi, rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama lamaa curija bi, markii la idheelmiyey habeenkii al-israa'u waalmicraaj waayo, markii la idheelmiyey xagga cirka la ii dheelmiyey, marartu biqowmin, waxaan soo maray dad lahum adfaarun min nuxaasin, oo ay leeyihiin waxa waaye cidyooyin oo maar ah, cidyahooda oo gacanta ah maar ah, yaqmishuuna wujuuhahum wa suduurahum, waxay ku jeexjeexayaan wejigooda iyo maxaanku idhahdaa xabadkoodii. fa qultu waxaan ku dhahay man haa-ulaa'i yaa jibriilu, jibriilow kuwaani maxay yihiin? qaala wuxuu yidhi jibriil haa-ulaa'i kuwaani alladiina kuwii waaye ya'kuluuna cunaaya luxuuma annaasi, dadka hilibkooda cunaaya. xantii waa hore u soo sheegnay an ya'kula laxma akhiihi maytantii waaye, waxa waaye waxay cunaayaan dadka hilibkiisay cunaayaan intay gowracdaan maaha, xantii waaye. wa yaqacuuna fii acraadihim, kuwaan saan isku galaaya oo saan loogu cadaabaayo waa kuwa dadka hilibkooda cuna, dadka sharafkoodana meel uga dhaca. abu hurayra allah ka raadi noqday qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi, rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama, rasuulka ilaahay wuxuu dhahay waa yahay almuslimu akhulmuslimu,
qofka muslimka qofka kale muslimka waa walaalkii laa yakhuunuhu ma khiyaano walaa yakdibuhu ma beeniyo walaa yakhdulhu garabkiisana kama baxo kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamun qof kasta oo muslim qofka kale muslimka waa ka xaaraam maxaa ka xaaraama waxa waaye cirduhu sharafkiisi ayaa ka xaaraama inuu wax ka sheego wa maali xoolihiisa ayaa ka xaaraama iyo wa damuhu dhiiggiisa inuu wax oo dhibaato u geysto attaqwa haahuna cabsida waa halkaanuu yidhi bixasbi imri'in min ashari qof waxaa ugu filan shar an yaxqira akhaahu lmuslim qof walaalkiisa oo muslima inuu xaqiro uu yaso oo ama uu daraabo ama uu quursado ayaa shar uga filan haddii shar kaleba laguma qabanayo lagu dhaho qof walaalkaaga oo muslima oo aad yasto oo aad xaqirto oo aad liiddo taasaa dhibka ugu filan abi hurayra allaha ka raadinay axaadiis fara badan ayuu nooga sheekeeyey waxa waaye axaadiiskan haddaan ku darno oo kii hore la mid a rasuulkaanu yidhi laa taxaasadu ha isxasdina walaa tanaajashu ha isfalluusina walaa tabaaqaduu ha iska caroonina walaa tadaabaluu dabadana ha isku jeedinina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qaarkiina qaarka kale yuusan qof beeciisa uusan ku dulgadanin wa kunuu cibaadallaahi ikhwaanan waxa waaye ilaahay walaaladiisow waxa waaye ilaahay addoomihiiso walaalo ahaada almuslimu akhulmuslimu qofka muslimka waa walaalkii laa yadlimhu ma dulmiyo ma gardaraysto walaa yakhdulhu ma garabkiisana kama baxo walaa yaxqiruhu ma yaso attaqwa haahuna cabsida waa halkan wa yashiiru ilaa sadrihi laabtiisa ayuu farta ku fiiqay 3 maraatin 3 jeer bixasbi imri'in min ashari shar qofka waxaa ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka inuu yaso kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamun qof kasta oo muslima qofka kale muslimkiisa muslim kale waa ka xaaraam damuhu dhiiggiisii wa maaluhu xoolihiisii iyo wa cirduhu cirdigiisiiba ayaa ka xaaraama marka xanta iyo waxyaabaha ay xumaanta ay leedahayna meeshaasi ayaan ka sii wadi doonaa qaybtaanin halkan ayaan ku joojinaynaa ilaahay ha nagu anfaco haadaa wabillaahi tawfiiq wallaahu calaa maa aquulu wakiil wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh